waxay BBC-da ugu warameen dhibaatooyinka ku saleysan cunsurinimada oo ay kala kulmeen dad fara badan. احنا اول حاجه كانت تعرف ديالنا بهدف المساعده korayaan iska naqaanay oo kaliya markii hore kadib aniga ayaa bilaabay inaan la xiriiro balse kaliya si aan uga caawiyo inuu shaqo helo si uu Morocco ugu sii noolaado kadib waan iska jeclaaday dabeecadiisa markii ugu horeysay kulanay wuxuu i weydiiyay waa maxay dabeecadaha aan rabo inuu lahaado ninka aan doonayo waxaan ugu jawaabay qof adigoo kala ah markiisii hore uu iscalinayay isagoo ka baqayay inaan diido maxaa yeelay anigu waxaan ahay gabar cad qoyskayguna gabi ahaanba weydiidanayeen ilaa markii dambe ee aan isguursanay marka laga reebo aabahay oo bilowgii horeba taageersanaa There is no love above our love. jacaylkeenna jacayl ka sarreeyo maba jiro waxaan nahay lamaanihii ugu wanaagsanaa abi mararka qaarse waxaannu ka xumaannaa oo dhowr jeer nagu dhacday in baska innagoo saaran dadku ay naaflagaadeeyaan marka ay yidhaahdaan dhaqanka iyo caadooyinka nooma oggola in aan guursanno dad aan carab ahayn taasi xaqiiqdii waa been waa waxa ay ku marmarsoodaan dadka cunsuriyiinta ah qiil ma haystaan ma hayaan waxay doodooda ay ku difaacaan haddaadan doonayn dad isla socda inaad aragto aawa islaamkii قبل ما نتزوج زعما ka hor intaan isguursan dadka qaar ayaa igula taliyay inaanan guursan Axmed maxaa yeelay caruur madow ayaan dhali doonaa ayay dhaheen wax dhiba ma laha oo waa ikhtiyaarkayga waana ku faraxsanahay ma kala jecli haddii ilmahaygu ay caddaan ama madow noqdaanba It had never crossed my mind. marna niyaddayda kuma soo dhicin waddan muslim ah sida Morocco oo kale ayaad cunsurnimo kala kulmaysaa taasi waa midda keliya ee iga yaabisay wax walba iska dhaafe sidee cunsuri ugu noqon kartaa walaalka Afrikaana waa waxaan caqliga galayn That is insane. وواحد السيده مره انا ويانا جالسين في حد maalin haweeney ayaa i aragtay inuu fadhiyo meel darajiin ah waxay aragtay Axmed oo ag fadhiya waxay tiri ninkan bax ku dheh waa ninkaygii ayaan ugu jawaabay way ma kaagtay su'aalaayeen igu bilowday sidii maxaad u guursatay wuu madow yahay maxaad ku fashay waxaan ku yiri Axmed waa ninkayga haddii aad doonayso inaad nala fadhiisato soo dhawow haddii kale se iska bax oo nadaa sidoo kale waxaa jira dad badan oo nagu faraxsanaa tusaale ahaan mar waxaa sawirka arooskeena aan geliyay bogga Facebooka dad badan ayaana hadallo wanaagsan noo soo qoray taas ayaana nagu dhalisay inaan samaysano channel YouTube-ka ah si ay dadkana la midka ah ay noola wadaagaan khibradooda Axmed waa ninkan weligayba ku taamayay wuu ixtiraamaa akhlaaq iyo dabeecad wanaagsan ayuuna leeyahay شاب يعني ذو اخلاق عاليه markan